بسم الله الرحمن الرحيم واشر مكان محمد وhalkan iga soo jeediya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobadiisa kala duwan marka calaamaanta waxaan dastuurkan afariistanaad hal ku dhig herdhigaya oo dhextaala sababta madaxweynaha ayaa qaraar ka soo saaray oo dastuurkan wax ka bedel ku sameeyay iyagiyo baarlamaanka iyo golaha guurtidu marka way ansixiyeen qaraar fiican oo ka soo saareen sharcigana way ilaaliyeen meel fiicanna way gaarsiiyeen marka adkeyntii laga doonayaa muwaadiniinta salaadkeeda marka muwaadiniintu waa inay ka qayb qaataan iyaguna waajibaadkooda saaran dastuurka qaramada jamhuuriyadda Soomaaliland marka waajibaadka marka uu bedelay madaxweynuhu sidatan maandiri soo saaray qodobka xafiiskiisa ka hadlayay sidatan baa u dhineed labada xeer inta wax bedelay waa intan waa halka qodob iyo labada qodob oo kaliya wax ka bedelay oo faahfaahin lagu sameeyay sidatan oo kale oo kooban iyagoo faahfaahsan qodobka koowaad iyo qodobka labaad iyo qodobka saddexaad ka afraad ba sheegayaan marka wax ka bedel ku sameeyaan faasiyo ana ku akhriyo waana arkaysaana hadoo la dhigo waxa weeyaan muwaadiniinta kasta waxa waajibaad ku ah buu ku leeyahay adkeynta midnimada iyo ummadda ilaalinta jiritaanka qaranimada Soomaaliland waa jiritaanka qaranimada Soomaaliland iyo difaaca dalka iyo diinta waafaqsan xeerkaas ayaa la faahfaahiyay qodobka xeerka labaadna waxa weeyaan qof kasta waxaa ku waajib ah in uu xaq dhowro dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland macnaha xeerarka dalka waa ansixiyo oo macnaha uu ilaaliyo waxyaabo bayaamsan sidatan buu dhignaa waa labada asoo lifaaqay ee wax laga bedelay ee la kordhiyay sidatan buu dhignaayeen bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynuhu dhahay qof kasta oo dhashay kulay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna noqon mas'uul dawladeed shicib urur asxaab aqoonyahan iyo madax dhaqameedba iyo madax kalaba iyo suugaanyahan iyo dhammaan qaybaha kala bulshada ee kala duwan oo markaas siyaasiyiin ah amba leeyahay kulay macnaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qaadi doonaa dambi khiyaano qaran qofkii ka talaabsada xeerka koowaad iyo xeerka labaad qofka shacbiga ansixin waaya oo baabaqsan qodobada koowaad iyo labaad ee go'aanka labadaas gole ay soo saareen hadday labaad ay dhigiso xukuumadda oo keli ayaa ka qayb geli karta shirarka macnaha kama qayb geli karo qof muwaadin shacaba ama aqoonyahana ama siyaasiya ama Allahumma salli ala sultaan ama aqila hadduu soo marin dawladda oo ka fasax qaadan wana oran dad baas ku leeyahay halkaas oo soo kala saaraya hadduu oran laakiin hadduu yiraahdo arrimo siyaasiyeed oo Soomaaliya ka tirsan ayay ka qayb galaya oo musharaxiin soo saaraya oo dawladda federaalkan keenaya taas waa khalad waa qodobka toobaad ee wataas macnaha qof kasta oo muwaadina waajib ka saaran dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu dhahayaa xeerka labaad xukuumadda oo keli ah ima ka qayb galaysa macnaha cid ka qayb gali karta oo kale ma jirto qof kasta oo ka qayb gala kulay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aankan labada gole baarlamaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland lagu kala aqbalay doono afis ka hor inta aanu la hor iman maxkamad awood leh ama waxaa la keenayaa kulay halkan ku noqdo aqbali dooni afis uu qofku soo dhiibto intuu joogo meeshii dawladda Soomaaliya kala عفيس بالهاي عافية دي عروة خدمات عافية لقى مياليو
oo ilaa maxkamad uu hor yimaado oo uu yidhaahdo amba may odhanaya maxkamadda ay ku qaado dembigiisa oo cogsanayo markaas wuu cafin karaa madaxweynuhu odhan karaa cafis madaxweynaha kusii daayay laakiin waa sharci ma sii dayi kara maanta uma odhan karo waa si maxkamadda ilaa uu soo maro madaxweynuhu ma odhan karo cafis aan kugu siiyey oo macnaha waa fasax baa tahay ilaa maxkamaddu soo maray ayuu sharcigu sheegaya sharciguna madaxweynaha kama sareeya dee sharcigaa ka sareeya wax kasta qof kasta marka sharcigii ayaa lagu dhaqaaqayaa dhammaan hay-adaha nabadda geliyada ee ku shaqada leh waxaa waajibaad ah in ay fuliyaan go-aanka labada gole isla markaana horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qarannimada Somaliland macnaha xeerkaas wuxuu ku leeyahay qarannimada Somaliland mudnaan ayuu qof kasta ku leeyahay macnaha waajibaad dastuuriya ka saaran inuu ilaaliyo sharciga jamhuuriyadda Somaliland deegaan kasta tuulo kasta caasimad kasta gobol kasta halka joogo gurigiisa uu ilaaliyo qofkii dhibaya ama jamhuuriyadda Somaliland dhibaato ka hor keenaya waa in ka hortagaa baa lagu leeyahay macnaha waajibaad baa kaa saaran macnaha waajibaadna uu kaa saaray diinta siduu ilaahay kaaga saaray waajibaadku diinta waajibaad baa kaa saaran ayuu dastuurkan aad qorateen haddaad tihiin ummaddan inkastoo ku dhaqan weydeen dastuurka ilaahay waad mid aad qorateen ku dhaqmasaan dimuqraadiyadda sheegaysaan dimuqraadiyaddu inta kastoo ay tahay mamnuuc ay tahay haddana lagu dhaqmayo marka sidaasay haddana sax ku tahay kii ka hor yimaadana halkaasuu ku dhammaanaya xeerkiisu waa sidaa iyo marka halkanna wuxuu kusoo dhigay markaa waa lifaaqii xeerarkii loo adeegsaday codsigii macnaha xilligii lasoo saaray baarlamaankii xilligay fuliyeen xilligii loo jeediyey tanna warqadana lifaaqa ay sheegaysaa qof kasta markaa u garanaya sharciga inuu barto sharciga dastuurka jamhuuriyadda Somaliland qof kasta inuu barto waa muhiim sababta waxaad ku heshiisay dee dalka in dadka ku heshiiyeen waa inaad barataa waa muhiim sababtaa sharci baa ku qabanaya marka lagu dhaho sharciga ku qabanaya horta kugu yaala qodobkee ku qabanaya waana iska hubisaa waana eegtaa akhrida sharciga ilaahayna wuxuu ilaahay ku leeyahay halkaas waa dembi ku galaysaa waa inaad kitaabka qur-aanka barataa iyo muxuu ahaa diinta barataa si aad u ogaato adba muxuu ahaa ku qabanaya muxuu ahaa dembigeed galayso suuradda ku qabanaysa aayadda ku qabanaysa ee ka odhanaysa dembi baad samaysay marka waa inaad saa wax u barataa ood labadaba ka hor keentaa hadduu laga dhigo waa inaad odhan dembi haysta xaguuga ka yimid oo dee aada odhan dembi aan galay ma jiro marka waa inaad si fiican u lifaaqdaa dastuurkana qodobka 4-tanaad mana gaadhin oo qodobkii 15aad marinay ee tan halku dhigaas baan ka hadlanay intaan inaan yar asixino aan dadka ugu yar baraarujino ayuu doonay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa sharmaake maxamed aadan sii sheer gareeya subscribe